xaflad ballaaran oo si heersara loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda Timcadde ee gobolka Gabiley. xalfadan ayaa waxa ka qalin jabinayay arday aad u tiro badan oo wax ka bartay jaamacadda Timcadde. ardayda ayaa ka qalin jabinayay heerarka kala duwan ee jaamacadda Timcadde. dufcadana ayaa dufcadii sideedaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Timcadde ee magaalada Gabiley. waxaana qalin jabinta ardayda kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID, maamulka gobolka iyo maamulka degmada, xildhibaano, waalidiinta ardayda qalin jabinaysay, haween, salaadiin, madaxda dhaqanka, haldoorka iyo marti sharaf tiro badan. qalin jabinta ardayda ayaa waxaa ugu horreyn hadalka qaatay gudoomiyaha jaamacadda Timcadde Cismaan Yuusuf Magan. waxaan leeyahay hambaliyo alxamdulillaah ilaahay ayaa mahad iska leh inoo suurtageliyey xafladan quruxda badan leh in aynu maanta iskugu nimaadno iyadoo weliba aan ugu mahadnaqayno siyaasadda xukuumadda dowladda hadda jirta ee ah in maaragtay priority-ga la siiyo ama tixgelin dheeraada la siiyo jaamacadaha public ah oo u adeega ummadooda aan ahayna jaamacad qof iska leeyahay ah asal ummadu ay leedahay wey. waxaa kaloo iyaduna aan ku soo kordhinay laba kulliyadood oo kulliyadda maxay ahayd ilkaha dhantiiska la yidhaahdo iyo kulliyadda HRM-ka. marka waxay marayaan hadda kulliyadaha jaamacaddu 20 kulliyadood. dad badan baa isweydiinaya oo oranaya 20 kulliyadood Gabiley jaamacadda Timcadde maxaa ku kalifay? duruuf aan lagu kaliftay oo ah in laga guuriyo magaalada. sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka iyo maamulka degmada Gabiley, wasiirka waxbarashada oo dhammaan hambaliyay ardayda maanta dhamaysatay heerarka kala duwan ee jaamacadda Timcadde. sharaf bay noo tahay qiimo inaad jaani soo siisaan daayartaa oo farxadooda kala soo qayb gashaan. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahad celino maamulka jaamacadda Timcadde, macallimiinta ku soo tabcay ubaxan dufcadii sideedaad ee jaamacadda ka qalin jabinaya. waxaan u hambaliyeynaa waalidiinta ardayda iyo ubaxa waqtiga geliyay ee ku soo tabcay ee ilaahay ku asturay noloshooda quruxda badan leh iyo waxbarashadooda iyo heerkaaba inay soo gaarsiiyaan. wasiirada waxaa leeyahay marka aad timaadaan intaasoo wasiir baa isku soo raacdeen, gobol baa timaadeen, dhalinyara qalin jabinaysa. waxaan odhan lahaa nin waliba intii ku soo beegantaa ama inta sii wadanaysa ha noqoto ama kuwa cusub ee qoraya ha noqotee bal ninba taagtii nina tabartii. waxa weeyaan umaynu iman halkan mandar iyo dee inaynu xafladda xagga hore soo fadhiisanno. war shaqo abuur samee, wax kale aad ku hamiye kursigii sagaalana aa fadhiisanin. hablahana waxaan leeyahay facebooka isku ilaawina, ka qaata facebooka inta idin anfacaysa. marka koowaad ardayda ka qalin jabinaysa sanadka 2020 waxaan leeyahay walaalayaal ama aabbayaal ama adeerayaal, allah idin calfo wixii aad barateen, allah idinku anfaco. waxaynu u hambaliyeynaynaa oo aynu halkan isugu nimi ardayda qalin jabinaysa. waxaynu leenahay hambaliyo ilaahay qalin jabinta ha idinka dhigo mid aan naftiina iyo qoyskiina iyo gobolka iyo qaranka iyo adduunkaba wax kaga bedeshaan oo xagga wanaagsan waliba ugu bedeshaan. qalin jabintu maaha waa tii halkan laga sheegay, maaha dhammaadkii waxbarashada, waa bilowgii qofku uu ku galayay waxbarashadii uu soo bartay inuu adeegsado, sii kordhiyo oo aanu weligii ka hadhin. waxbarashadu ma dhammaato weligeed. maalintii aynu dalka subxaana wa tacaala ilaahay gacantii noo soo geliyey meel qolo jaamacada ka jirtay ma jirin. maantana aad baan jircood markaydii xitaa toga jaale oo lagu yaqaano tagfi berigii dee baqaystaada. ugu dambeyntii waxaa xalfadda qalin jabinta soo xidhay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hambaliyay dhammaan ardayda ka qalin jabisay maanta. wuxuuna hambalyo iyo dardaaran iyo duco u diray dhammaan ardayda qalin jabisay ee wax ka baratay jaamacadda Timcadde. waxaan runtii dhammaanteen maanta farxad weyn noo ah inuu ka soo qayb galnay qalin jabintii jaamacadda
timcadde university baashkii sideedaad ama horumadii sideedaad ee ka qalinjabisa aad iyo aad bay farxad dhammaanteed noogu tahay maanta ilaahay baana mahadle inagoo nabada halkan isku keenay oo dalkii dadkii nabad degan yihiin intaa markaan ka gudbo waxaan runtii maanta aynu joognaa maalin walba waaya leh waa maalintii ardayda maanta qalinjabinaysa farxaddooda oo dhammaanteen aynu iska dabamarayno aynu hambalyeeyno marka hore waxaan leenahay dhalinyartii habliheenna male maanta halkii qalinjabinaysa dhammaantiin hambalyo alf mabruuk baan leenahay alf mabruuk waxaa kaloo bogaadeenaa ama u ducaynaynaa macallimiinta jaamacadda iyo maamulka iyo maarata iyo profeseerka guddoomiyaha jaamacadda oo iyaguna runtii kuwa mudan aynaynu u hambalyeeyno ama u ducayno khaalid maxamed daahir TV-ga badda cas gobolka Gabiley ma og tahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111 oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom